America joogtaa, Canada joogtaa, meelo badan aad joogtaa oo rightskaaga oo ku qoran oo sharci uu yahay. Laakiin hadda haddii gudoomiyihii ay tiraahdo sharci maba jiro hadda ka bacdi la sameynayaa, what is the problem? I have no see any problem. laakiin dhibaatada jirto aqoon darro waxay ka xun tahay ma arkano qaadi waaya ka xun tahay qofka hadduuna aqoon sharciyeed lahayn oo dhaha waxba anigaa ka sahay dhibkeeda leedahay ama oo nin asaga xataa oo ku accuse garaysan inuu reeb sameeyey waa fiir haddaa maanta waxaa lasoo dhigay cunug yaroo yar oo oday weyn gursaday rightska ah gabadhaas hadda soomaali waxaa la samey jiray qofaa la xoogaa ninka xoogaa lagu daraa lifetime sentence waay fiiri taas sharci miya ma ahan royaal qofka runtaa laisku sheego Canada ka imoo Mareykanka imoo Soomaali tag let's talk about it that dadkaas markay xanuunka dareemaan adi xanuunka aragtid waay marka gudoomiyaha waxay tiri afcada waxay ku tiri waxaan ma jiraan hadda ka bacdi la raadinaa marka haddii shareecadii dadkan dhan qayrinayo waxay u jeedaan waa dowladii hore runta hadii isu sheego dowladii hore waxay ugu xanaaqsan yihiin frimbiga ee yeerisa gudoomiyaha that's the only thing ku xagahayaan marka haddaa ku xagahaysiin maanta inaa imaatay ahayd aad weydi su'aal inaa maanta imaatay aad su'aal weydiisay ahayd laakiin waxa aaday guutaal iyo waxaase aadeen maxaa yeelay you are not maxaa la human being aad ula hadashay su'aal weydiisid sababtaa soolo thank soolo wuxuu keenay gudoomiyihii wuxuu opportunity weyn u siiyey qof walba inuu hadasho su'aal weydiiso wayna ka jawaabtay and I don't see now inaad gadaasheeda ka qaylisay sababtaa ninka sheekha sheegaya warniga soo buuxiyey iyada hope inay maxaa la dhahaa cajalad ee Cabdullaahi ayaan darro waxa ah hadaaba diinta iyo dhaqanka iyo siyaasadda isku qaldayso marka waxa sheegaysa maanta waxa sheegaysa aniga I didn't open my mouth maxaa yeelay I'm civilized ahay adi civilized matid baadis marka dadka marka wax ka sheegaysid ama wax sheegaysid go school learn law ka bacdi hada waa ka baxay ولا سؤال بنك هذا وتقول كبحنا شوك ولا الكلمة I really hate in I'm good dad waaweyn waa ka xumahay fantastic waxa waa the only way we can asmaqli karno hadaqana waa lagu siinaa meeshaan wiilka inuu mar xiriiro bisaa soo tahay maadaama idinka soo korteen oo sheekada xiiso leedahay waa la sii wada rabaa let's take it easy dadka xuquuq ay leeyihiin dad bacbaar gacanta u taagneed adigu waa hadashay mid kale attack of each other naga dhaafa maam Zainab soo dhaw السلام عليكم ما waxaan rabay kaliya inaan iraahdo horta hadda sharci baarlamaanka yaa lama jiro qodobada la soo qorqoraayo oo meelaha lagu soo qoraayo waxa waaye waa sharciga hore oo baarlamaanku uu diiday marka hadda waxa dadku isku qaldayaan waxay tahay 16 days of activism kan oo adduunka dhan ka socdo ololahan ka socdo oo looga hortagayo ma aragtay falalka haweenka loo geysto iyo inuu kaas yahay sharci baarlamaanka la keenayo maya ma ahan waxaan waa wax adduunyada dhan olole ay sameynayso waay oo gender maxaa la dhahaa based violence looga soo horjeedo laakiin sharci hadda baarlamaanka la keenay oo Soomaaliya ma jiro marka horta teeda kale maxaa la yiraahdaa marka la leeyahay maxaa la yiraahdaa yes diinta islaamka horta ma banayso sidiisaba in la kufsado gabar ama cunug yar la kufsado ama wiil la kufsado xagee diinta uga qoran tahay runta ma isku sheegno musla allo Soomaaliya maxaa beenta iskugu akhrineynaa falka qofka uu sameeynayo waa fal diinta wax ka mamnuuc ah soo looma baahna marka in qofkaas ummadda laga qabto iyo society-ga haddii aan laga qabanaynin ama ha lagu xukumo diinta islaamka ama ha lagu xukumo sharci wax la isku raacay laakiin waa in bulshada laga qabto qofkii dhibaato u geysanayo taas horta waa in isla fahamno intaas sababta waxa waaye gaala wadi iyo gaala keenay iyo maxaa la yiraahdaa war annaga dhib isku hayno iska daa hadda gabar la kufsaday naf la gooyo waxa diinta islaamka ugu xun waa dhiig muslim in la galo qof la dilo maalin walba horteena dadka lagu dilaaya marka mana laga hadlaayo mana laga dhiidinaayo marka walaalayaal waxa waaye inta loo jeedo siyaasad iyo in lagu ceersado maxaa la yiraahdaa sacdiye siyaasad yaa la iloobin waxa danta u ah caruurtan masaakiinta ah iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo ummadda wadanka joogto qofkii maxaa la yiraahdaa at least hadda hodan daayo waxay tir moogtahay ka hadashay dhaqanka reer galbeedka iyo sida oo xuquuqda
haweenka ugu tunto laakiin reer galbeedkaas hadda intii aad ka hadlaysay waxna waa wax dadku iyagu shakhsiyan ay doorteen hadda gabadha waxay siinayso oo kastoo waxay siinayso iyadaa dooratay oo shaqo iskula laakiin ma dhacayso in nin intuu gabar kufsado isagoo kufsanaayo video intuu duubo uu social media soo geliyo yaa ama gabar maxaa la yidhahdaa kufsi wadareed lagu samaynayo oo haddana ay magaalada socdaan raggaas marka waa loo baahan yahay sharci degdegaana loogu baahan yahay qaabkee loo approach garaynaa baarlamaanka markii loo keeno bal aan sugno horta hadda yaanaan ka hor dhicin waxa la wareejinayo oo social media lagu wareejinayana waa been ma ahan sharci hadda baarlamaanka yaallo waa sharciga hore oo baarlamaanku laalay marka horta intaas bal aan isla fahamno walaalayaalow waxaa la yidhi maogtahay messengerka lama dilo sacdii waxa ay ka hadlaysa iyadu waxay ahayd wax lasoo googooyey iyo wax la isku geegeeyana way yihiin horta oo ma ahan hadalka waxaa la yidhi qofna si yiri qofna si u qaada haddii inta la qaado maanta dhan dhowr meelood waxyaabo ah ka tirtiri la isku keenkeeno oo loo ekaysiiyo wax iyadana dhibkeeday leedahay munaafiqnimo badanna way socotaa marka iyo in la yidhaahdo qofkii hadlaba oo ka hadlo xitaa war kufsiga in la yidhaahdo qoomuluudaa tahay war xaggee qoomuluud ani soomaaliyan joogaa mana arko imeji markii hore oo aan soo koraayay aanba arki jirayba xabad xabad hadda masaa u imaada maba arkinbo marka ma aqaan ani qoomuluudkan la sheegaayo iyo maxaa la yidhahdaa dadka lagu maaragtay lagu lifaaqaayo oo laleeyahay qoom lagu shaabadaynayo taasina ma fahmin marka bal ilaaha laga boqo masrael waa mahadsantiin ما ينفع أقول يا هذا اللي بيجينا walaal anaa gacanta ii taagnada kelmad aan walaalkii hadduu imaqlayo كا كل إعلان ma kuma dheeraanayo walaal aad ma jecel hadalka badan waana mahadsantihiin dhibaatooyin bay ka hadleen walaashada hadduu dambeysay walaalkii ku xigayba waa run dhibaato inay jirto iskuma diidanin way jirtaa diinta islaamkana innaga ale culimo male shaksina lagu duri maayo shaksina looga tegi maayo raytiska walaalkeen uu ka hadlay ee dadkan loo raadinayo waa sax horaan uga hadlay waa su-aashadii hore imu maqnaa waan malaynayaa ma diinta islaamka inuu raytiska weyni awoodda sakan aad ku filinayso raytiskan hadda aad u waddo dadka waliba qodobka kufsiga anigu wax kale ka hadli maayo waxa kale laga hadlay anigu ma jeedo qodobkan kufsiga awoodda aad raytiska aad soo waddo ku filinayso maxaad kan islaamku ina faray ee aanu leenahay u gelin weyda juhdiga oo ugu filin weyday ee gabdhaheenna raytiska u haya xuquuqda u ah ee ta maraykan joogta ee ka yurub joogtaba uga fiican taas qunays dul taag mise diintiiba noqon wadnay oo uma jeedido wax ka wacan baa dadka u haysaa bointigaas kor taag walaalada xagga midna u leexan waana mahadsanta raallihow haddaan kugu gafay ma ka jawaabi karaa hodan adoo raalli ah واكي جواب كتا كبعدنا حسينا هذا أصو قابلنا سليبان داينا مع بشير دان واحدنا إن شاء الله laakiin u dhiib horta waxaa nasiib darre markii laga hadlaayay female-ka ayaa meel kale la aadaa sababta waxaa jirta xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markuu qof waxada gacanta la diinta dhigaysa way uga hadli weysa markii gabadha raadkooda laga hadlaayo diinta ugu aadaysi waxyaabaha horta waxa waaye oo hypocrisy waaye oo nimankaan sameeya waxa waxaan maleynaa dadka saan sameynaayo waa dadka rabaan inay abuse ku sameeyaan female-ka marka that is the only thing aan ku sheegayaa sharciyo badan ku jiraan oo dhahay qofka doosaan sameey gacanta laga jar ahayd ma ka hadlaysiin marka waxa ka hadlaysan oo kaliya markii raadka laga hadlaayo aan meel kale aadin maxaa yeelay the victimska waxa waaye female-ka waaye waxaa taqaaniin odayaashiina Soomaalida ah ina abuse gareysiin gabadha ninka xooga ah ku dartiin so the only option you have waxa waaye inaad abuse ku sii wadiin marka abuse dii la joojinaayo you have to accept it ma fahmino marka la saa ku dhihi lahaa waa ka bax فيني وحنا القرآن كوادين محاكو جوان هدي القرآن كلا when it comes to هذا أنا بدي صومع ولا أنا ما تقعدتي تاني لكن أنا سؤال أسئلة فيري حتى القرآن كله كيري سلكت بكتينو كيري دينته وحربت أنا كدورنا صح حربت أنا كتيسان كيري okay هي دائما done we'll go from there ليبانا أنا هرت عبد الله lawyer كرت بقولك بقول أقرأ سنة هاي dadka Soomaalida I don't know waxay ka tahay in qofna meeshan aflagaadi mar rabo laakiin jaahilnimo miyay ka tahay aqoon darro miyay ka tahay munaafiqnimo miyay ka tahay quraanka waa runtiis diinta selective ay ku yihiin waxay rabaan ay ka soo qaadanayaan waxa rabaan ay daynayaan markii gabdhaha loo yimaado maxaa quraan aan leenahay okay hada kitaab iyo quraan ma isku dhaqanaa ma ogtahay diinta islaamka inaysan ogolayn waxa la yiraahdo taxation in la iska qaado canshuur ma ogtahay diinta islaamka xaraam bay ka tahay in taxation la iska qaado weliga ma arag qof ka hadlaya oo oranaya
tax ka hala joojiyo diinta islaamka kasoo horjeedaa ma jirto haddii wax la xado waxyaalaha sharciga noo degan oo dhan runta marka laga hadlo diinteena islaamka ah si toosa uma mataqaanaa uma raacsana I'm waxyaalaha badan sorry to waxaa ku interrupt xukumaa حكويدينا clarify taxiga xaaraan uu ka yahay diinta islaamka nabiga sal ly slam waqtigiisa waxaa jirtay xaaraan buu ka yahay social walaal support aa jirta see loo samayn jira marka walaal it's a question xadiis baa ku jira xaaraam wey amay walaal waa xaaraam diinta islaamka ah waxa la yidhaahdo taxiga laakiin waxa jirta wax zaka ah oo diinta la shaqada laakiin taxiga diinta islaamka xaaraamka oo soo baari kartaa google-ka marka waxa fiican dadka inay ogaadaan waxa kala saara waxa ama aan ku wada dhaqan quraanka ku wada dhaqanno oo qofkii siduu yahay quraanka u dhaqanno oo yaana selective noqon waxaan rabnaa aan ka soo qaadano markii kufsi yimaado ma kan quraanka loo dhaqo waxa kalena baan iska dhaafno waxaas maaragtay caqli ma aha marka horta waa ku raacsanahay arrinta kale aniga gudoomiyaha waa maqlaya caawa dhageysanay runtii fikirka maalinta hore ka qabay iyo caawa fikirka qabay laba fikir runtii aad u kala duwan boqolkiiba boqol waxa laga sheegay ummadan horta social media hadda sii raacdid qofka waa lagu magac dilaa qofka wuxuu sanahay ma laga dhigayaa wala soo jarjarayaa fiidiyoyihiisa waxa laga yaa wax yar baa laga dhigayaa wuxuu uu rabo ajendaha uu rabo buu mataqaanaa kugu marsiinayaa marka qoftan qof waday aniga day lama arkin waxa meesha lagu wadaday LGBT-gan iyo maartay meesha loo socday aniga qof waday lama arkin qof wayna sheegtay qofkii binaad hadduu qofkii meeshii soo istaago uu yiraahdo aniga waxan iyo raali kama yihi adiga inaad dhahayd ma raali ka tahay maartay ani caqli uma arko iyo maartay bahalkii qofkii isaga wuxuu wax raali kama yihi waxan 2017kii ahayd waa la diiday mid kala wana wax gabdhaha mataqaanaa gabdhaha lagu protect garanaya rabnaa gabdhahana inta dad badan oo lehna waa maqlay maxaa looga hadlayaa law isagoo meeshii mataqaanaa law enforcement isan oolin oo police wixii sameynaya ama raacaysan jirin de wuxuu mataqaanaa baash inay wax bay ka horeeyaan inta police aadan keenin meesha ama law enforcement horta law inuu meesha yaalo maxay loogan muxuu qofkan horta ilaalinaya waxaan khaladkii saxii waxa sameynaya dadkan shuruucda dhigaya hadhow ninkan sharciga fulinaya oo mataqaanaa wixii dadkan ay dhigaan sameynaya laakiin qofkii waxada hadda annagaba aan wadankeena noo olin qofka waxada waa tuug ama waa khalad ninkan waxa sahagaya marka waa sax inta horta aysan bilaaban bahasha law enforcement oo dawlad fiican insha Allah noo dhalan doontaa inta aysan noo horta waa inaa shuruuc saxan oo mataqaanaa degan oo diinteena iyo dhaqankeena ku salaysan aan dhigno ka bacdi aan insha Allah law enforcement-ga iyo waxyaalaha kale iska imaan doona hadii la haydo waana mahadsantiin adaa mudan liibaan ku soco please soo gaabiyo wiilka wuxuu dhawaa xiraaya mar hore liibaan hodan waa mahadsantahay abaa ana horta waxaan rabaa qofkii aan Soomaali ahayn oo dhageysta doodan macnaha wuxuu u qaadanayaa hadduu Soomaaliga fahmaba in issue-ga ugu weyn oo ugu dhibta badan oo top priorities oo ay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed inay xaliso inay tahay kufsi ama wax la xiriira waddanka Soomaaliya macnaha boqolaal qof baa every day waxay ku dhimanayaan qarax iyo dil iyo terrorism act ma aragteen baarlamaan ama gudoomiyaha ha noqoto ama kuwa kale ha noqoto oo sharciga ugu muhiimsan oo terrorism act la yiraahdo oo waddanka u yaala oo ummadii dhaqaalaheedii nolosheedii hooyo aabe gabar wiil nin qof kasta equal u saameynaya qof passionate ka ah oo riixaya oo ka hadlaya maaragtay taa marka ay ka dhigan tahay waxay tusaysaa two things sharcigan dad badan oo waxaan maqlay diinta islaamka soo qaadan horta diinta islaamka haddaadan evidence aad uga hadlayn waxa way wax lagu istihzaa lagu sameeyo maaha quraanka ilaahay haddaad leedahay because saas baa quraanka loo soo qaatay saan baa loo soo qaatay haddaad aadan adillo uga hadlayn oo aadan wax sugan ooda uga hadlayn ma aha wax si lightly ah oo qofku soo qaatay marka taas I think inaan hoos laga xariiqo meeshaan Sacdiyo waa gudoomiyihii baarlamaanka dhan way waa gudoomiyihii ajendaha baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ka hadlayay controversial way ma ahan xataa just another MP ma this is the leader afkeeda waxay ka tiri intay ama emotional ha ahaato ama catifad ha wado xamar ka tegi maayo ama waan joogaya ama xamar baan joogaya ama waa ka tegaya ilaa sharcigaas baas gareeyo bayt waxa marka public domain ka yaalo oo hadda dadku ay arki karaan waa first draft oo sharcigaas
soo maray xukuumad macnaha cabinetka soo maray oo qof kasta hadda uu arki karo oo uu akhrin karo culummada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed macnaha oo ajaanib walba marka laga fiiriyo waxay dhaheen this is not for us haddii ay westiga ay tahay society-ga Soomaaliya wax u cuntama oo dhaqanka iyo diinta first principle of constitution-ka buu violate garanaya oo ah wax kasta oo diinta islaamka ka hor imaanaya oo bataatanba is unconstitutional marka horta Sacuudiga ayada afkeeda laga hayaa qof jarjaray iyo macnaha selective coding baa lagu sameeyay malaha she is the one oo tiri sharcigan waxaa laga baaskareeyay Puntland iyo Somaliland anna am hell bent inaan xamar ka baaskareeyo oo sharci ka noqdo and that is waxa qof walba uu ka hadlay qof ayada gooni u qaadanaya malahan and that is the issue oo meesha taala waa wax meel kale ka yimid wax dhaqan Soomaali hadda arrinta marka laga hadlo kufsiga Soomaaliya hadda waxay leedahay sharci the penal code of Somalia asaga wuxuu u baahan yahay enforcement qof booliska Soomaaliya oo miyaa maanta sharci ka hor celinaya jira gabadhii la kufsado ama wiilkii la kufsado ama qofkii lagu tacadiyo ama qofkii la dilo waxaa la leeyahay booliska Soomaaliya ma haysto ama law enforcement-ka Soomaaliya ma haysto sharci ay qofka prosecution kula samayso qof dhigi kara ma laha 1962 macnaha penal code-ka Soomaaliya baa la baaskaray oo yaala oo aan wali la bedelin from corner to corner adduunka dhan ugu registraysan sharcigaas waxaa ku qoran qof kasta macnaha security marka laga hadlayo caafimaadkiisii waxaa laga hadlayaa securitygiisii cirdigiisii baa laga hadlayaa propertiesii baa laga hadlayaa all that is waa law yaala maanta oo police enforcement ay kulli qaadan karaan marka this is what it is agenda meel kale ka timid macnaha qof kaa yeelayana ma lahan waxa ay baarlamaankan 11aad sidii hadda loo keenay the only agenda oo ka timid minada xukuumadda proposalska ka yimid laakiin waxa kaliya oo aan ka maqlayno xukuumadda macnaha baarlamaanka soo far initiative-ka ka yimid waxa weeye inay sharcigan rabaan inay soo celiyaan draftigiisa hore ayna marsiyaan and that is what dadka Soomaaliyeed ay ka react gareynayaan okay for your information maanta markii la wareystay waxay tiri sharciga hore qadka laga bixiyay waa la tuuray lama isticmaalayo they're gonna drive a new one that's what she said hold on ku soco please use 30 seconds hal kalmad buu ku daraa please maam ku darso dan hold on dan sigaada ma sharciga horta kii hore waxa keentay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo la celiyay haddana sharcigan hadii maxaa la yiraahdaa dib loo qoraayo dadka soo qoraayo oo keenaya baarlamaanka waa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka baarlamaanku iyagu marka loo keeno unbay fiirinayaan akhrinayaan maxaa la yiraahdaa wixii qaldan ay diidayaan wixii saxan hadii maxaa la yiraahdaa la pass garoobo oo kulligiis fiican yahana la pass gareena sidii kii horeba marka process uu maraya laakiin sharci hadda baarlamaanka yaalo oo la xiriiro maxaa la yiraahdaa kufsi ama maxaa la yiraahdaa anything oo gender based violence ma jiro hadeertaan Sacuudiyana way sheegtay caawa dhan way sheegaysay annaga magaalada joognana waa ognahay inaanan la geynin kii horena waa la soo celiyay oo markay ay wasiiradda ahayd qiyaasiin walina mar kale lama geynin marka hadda haddii la keeno waaye waxa ay ka hadlaysay iyada if oo la keeno in maxaa la yiraahdaa la pass gareeyo loo baahan yahay in la pass gareeyo because of dhibka jiro marka baarlamaanku hal coday Sacuudiyana ku leedahay wax ay marsiin kaligeed marsiin kartana ma jirto marka qof walba waxa waaye marka la keeno horta bal aan aragno ha loo diro khubaro iskugu jirto ma aragtay culamaa u diin iyo maxaa la yiraahdaa dad bartay loo hal la fiiriyo wixii qaldan hal laga saaro wixii saxan hal gudbiyo maxaa ku jaban intaas kulli shan qof oo xildhibaano ah meesha ku jiro moogtahay iyada hal ka tahay marka yaana maxaa la yiraahdaa ku mashquulin maxaa la yiraahdaa sharci meesha yaala inuu yahay hadda oo kale hodan ku socdaan sigaada please oo gaabiya hodan wala loo soo gaabinaya koode horta sharciga ma ahan iyo waa arki doonaa oo waa loo joogaa macluumaadka aan helayno oo anaga baarlamaanka dad baa noogu jira wasiirada dad baa noogu jira xukuumadda ma lama dhagax xirno horta oo Soomaaliya oo dhan dad baa matala laakiin meesha waxaa taalo abay Sacuudiyo anu Sacuudiyo personal baa aqaan siyaasadna ugu soo horjeedo ilaahay baa maqlaya personal baa aqaana magaalo waan almost 10 sano wada deganayn ma fahanta waa gabar firfircoon waan jeclahay say rag isaga celiso yani waxyaala aniga
personally habit ee abay leedahay laakiin qodobkan kuma waafaqsani laana waay waxaan u jeedaa oo rabbi subxaanahu wa tacaala igu ogyahay anigu maanta protecting whatever uu cabdullaahi siigaali yiri protecting bay haystaan gadish bay haystaan protecting ma haysano oo Yurub iyo Mareykan waxaan ku joognaa haddaan waalidiinta muslimiinta nahay cabsi iyo wadna kurkur iyo ama wiilkaagu gay noqdaa ama gabadhaadu lesbian noqotaa ama gaaloobaa ama muxuu haytay ii sheegay ama inta Soomaaliya cabsi taala laba jibaarkeedba inta taala hadda anigu ma ka hadlayo qof dhaldhalaalka adduunka iyo furniture cunada ku jirta iyo gaariga wata iyo waxyaalahaas ku qanacsan anigu Mareykan waxaan soo galay anoo qof bayska diinta si fiican uga dhisanaa la igu soo tarbiyay reer culimo bays culimo oo dhisan ka soo jeedo oo soo bartay oo dugsi ilaa heer macahad ka baxay ma fahan marka indhahaygu furan yihiin digtooni qaba baan Mareykan iyo Yurub imid intal now caruurtayda maaragtay ii sheegay kan ugu weyn 19 jirka ilaa midka ugu yar 5 jirka 5 days a week baan dugsi geeyaa waxaan u geeyna oo diinta bara oo masaajidda ku xira waxaan u sameeynayaa waxay tahay ilmahayga xuquuqdooda iyo mas'uuliyadooda iyo dayacna inuusan igu dhicin maadaama ana bay'a ila maaragtay way isku way aan socon aan ku dhex noolahana inaan anoo maaragtay protective ah oo high attention ah inaan ku dhex noolaado oon taydii adduunyada ka qabsado taydii aakhirana ka badbaadsado horta qof hurda baan horta maanta waxaan isdhihi karaa aan dareemi karin arrimaha waddankeena loo waaridayo siyaasad xagga iska dhig siyaasad waa waxa naga dhexeeya oon anagu dalkeena isku haysano qabiil baan isku dirirnaa waa waxa naga dhexeeya laakiin ummadda markii laba meelood lagala diriro way baabaadaa anigu sidaan aaminsanahay Soomaalidu laba meelood bay ka badbaaday dhibaatada qabyaaladda iyo dhibka ku dhacay iyo isdilka ku dhacay haddana ummadaasi waxay la nooshay la dhaqaaqaysaa bilinka hadda la dumiyo loo dhisayaa waxay haystaan hooyo aaminsan inay ninka ilmaha ay u dhashay waxa la dhahay ilmaha u dhashay inay ilmaheeda ayadu dhalatay ayadu korsanayso ayadu u barbaarayaan bay'ada ayagu u yihiin bulshadu ayagu u yihiin aaminsan waddanka iyo dalka iyo dadka ayadu diinta inta saddexdaba inay iska leedahay daa mother believing ka motherkaas ka imaanaya darteed bay Soomaalidu ku badbaaday baan anigu iraahdaa waayo waa ogtihiin bulshada nimanka la yiraahdo qofka hadduu wax aqriyo wax badan buu ogaanaya anigu Santa Joseph iyo Santa Mary iyo St Thomas iyo Harvardson baan ka baxay iyo dadka noocaas kaliya u fakara anigu muslim standard kuma dhiso laakiin standardka islaamkayga waxaan ku dhisaa anoo intaas aqaano oo aaday jaamacadaha maadiga haddana ma leeyahay bayskayga diinad ma haystaa ma garanayaa diintaydu waxa aan xadgudubka iyo culture-ka iyo dhaqanka iyo islaamnimadayda xadgudubka ku ah iyo waxaan ku ahayn waxaan rabaa nimanka la yiraahdo walaal wuxuu yiri wiilka hadda ugu dambeeyay Abay Zainab ka horreeyay wuxuu yiri 60kii baan xeer lahayn waa sax xeer ummad islaam ku heshiisay oo ummad islaam degsatay oo ummad islaam ay wada saxiixatay baa noo yaal ayadoo waxba laga bedelin oo la ammaanta lagu sameeynin way mid kale loo soo waaridaya annaga marka hadaayayna waan iri walaalayaal xuquuqda gabdhaheena iyo jilicsanteena caruurteena dhalinyaradeena inaan difaacano waa u baahannahay waa no doubt laakiin xagee ka raadinayna waxaan ka raadinaynaa annaga culture-keena iyo diinteena ka raadinayna ayaga kuwa fit ah oo aan erayo qarsoon ku jirin oon waxa la yiraahdo hebel baa dabada wax laga gashaa ku jirin oon rag iyo dumar midna dhaleecaynaynin una kala eexanaynin baan samaysan karnaa also waxaan rabaa rag ninka culture-kiisa ceebaynayo oo la Soomaaliba inta gabadha kufsata gabadha siin jirtay adiga culture-ka u ordaysid ninka culture-kiisa raadinta makaaga appreciate garaynayna ay culture-kaaga burburisad culture-kiisa soo raacdid walan tarda canka yahuud wala nasaara hatta tatabi'a millatum reer bani Israa'iil iyo reer nimanka la yiraahdo ishagay nasaari iyo yahuud ayaga dumarkooda inta laga soo galay fasahaadkii dumarkooda lagu sameeyay to abtina odayaashoodii iyo professoradooda dhimir ka qaadeen ma fahantay ayaga habbi ku ah gabadha abaayo hodan waa soo koobiya iyo kaad macaanto badan baa ka dhumay hodan ninka gabadhiisa 16 jir inta guriga loogu yimaado nin xaaraan asoo ku wata oo uusan raali ka ahayn dhididaya damirkiisa bila aadanimo inta la dilay xeer loo qoro dawlad u dejisay ku qanacsan oo hoostana ka istaraysayo kaniiniyada cunayo dhahaaya gabadheedu amnaad la sheekaysta gaalada reer galbeedka rag dhahay professoraan hay waxaan hada meesha aad leedahay saacadiye kuma raacsani bal nooqah
abaaye macaanta waxaan ku raacsanayn ma taqaanaa ayay macaan ayay macaan hana markuu qof ummad markii xeer loo dejiyo oo wixii sharci dawladeed uu noqdo oo xeer hoosaad loo sameeyo oo la qodobeeyo oo wixii ay noqoto amar dawla adeec ninkii diida dabaal ay noqoto luuqadda uu ku qoran yahana laygu yiri haddii meel dabada haddii ninka wax laga gasho asuu raalli ka yahay labada qof ay raalli iskaga yihiin lama agmari karo maxaa imanaya waxaa imaanaya da'yartaada in la baro waxaa imaanaya dhalinyaradaada inay ku maaragta ku involve garowdo waad aragteen okay haddaba aan meeshaas kugu toosiyo may 1 second you will finish ay macaan just 1 second waxay tiri kii hore ma aha kanna weli lama qorin hana masacdiyo hadalka say u dhigtay bas abaayay anagu waa caawa sida ayadu tiri dhageyso aniga sacdiyo personal aan u aqaanan ku dhahay intaan la contact garay personal u contact garayaan waxaan dhihi karaa sacdiyo abaay saas iyo saas wax ma u jiraan ma fahantay anigu gabadha maba haysto kaligeed sacdiya keentay ama dhamaynaysan maba dhahayo waxaan ogahay kuwa sacdiyo kaga horeeya kagana ma dabadan ka riixaya lacagaha dawladaha shay ka soo qaaday ayagu liir garaynaya sacdiyo ani waxaan aaminsanahay waa durbaan qof kala tumaay ma fahantay ani sacdiyo maba haystaba sacdiyo one vote bay leedahay votekeedayna qaadi kartaa votekeedayna wax ku baasin kartaa votekeedayna macnaha maaragtay ku codayn kartaa qof kale votekiis ma xukunto laakiin the thing is as a bulsho ahaan annaga gabar iyo wiil iyo hooyo iyo habar iyo oday waxaana laga dhaadhicinaayo ma wax qualified nagu abaa oo annaga valuegeena astaahilaan mase waa waxaan astaahilin annaga culturekeena duulaan ku ah that's the only word you need to ask yourself okay abayo culture-ka aad ka hadlaysidoo Soomaaliyeed xagee kaga jirtay oo la arki jiray 3 jir iyo maxaa la yiraahdaa 5 jir la kufsado hadda abay ma culture-keena ogolaanay mise dadkeena may hadda way dhacday hadda macaanto way hadda Soomaali dhacday wiilal la kufsaday may abay macaanto way dhacdaayo wadankan xeerarka u degsanayna ma sameeynayna may Zainab u kaadi Zainab aan kaaga jawaab su'aashay weydiisay 3 jirkii la kufsanay waa aragnay 2 jirkii la kufsanayna waa aragnay ma wadankan waa wadan jaban oo burbursan oo baabacsan oo xeer ka shaqeeyaba uusan jirin Soomaha qabyaalad iyo dil baa ka shaqeeya laakiin wadamada nabadda oo xeerar kale oo u samaystay 100 sano ka hor xeerarkan ciqaabta u degsaday ma ka dhacdaa oo daily every second bay ka dhacdaa mise kama dhacdo abaayo Zainab way ka dhacdaa yaana isxaqirin aabayaashii baa ilmahooda ku sameeyay aan kaaga jawaabo hodanay abaayo horta sideedaba kufsi adduunka meel uusan ka dhicin wadan uusan ka dhicin maba jirtaba laakiin waxa lagu kala duwan yahay waxay tahay midna waxa waaye kufsiga marka uu dhaco qofkii sameeyay waa dambiile oo dambiya lagu qaadaya midna waxa waaye suuqaasu iska marayaayo hadduu rabo 10 kale uu haddana uu kufsanaya hadda Zainab waa ku fahmay you're right sharci inuu jiro waay dadka kala reebo oo Zainab you are right but theory maxay ku dhacday aan isweydiina abay maxay ku dhacay xeerarka noo degsan ee sharciyada kufsiga iyo dilka iyo magaciisa nooga degsan muxuu u fakshan garin la'yahay ma wuxuu u fakshan garin la'yahay xeer baanaan haysan mase wuxuu u fakshan garin la'yahay cid law enforcement looga qaadi kara action baan jirin oo wadankiiba qabyaalad baa madax ka ah wuxuu u shaqayn la'yahay wiilkii la xiro oo wax kufsaday ya dibadda